السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتنا قاري كسود هذا channel كان فضلنا دي أنا وعصبتها سبسكرايب نوده حتى ترون له جوكتني لاكتي شركة وحقينا إن ما أنتوا حنكهد للدونا إن شاء الله تعالى وحيابه ونكسن أو دبيعي جاء هرقبك وفيروس كل عبني آدمك أنت بدن فيروس كملهن وحدة وآها بكتيريا أيا أنت بدن داول له marka fayraskan bacteria maxay ahayd oo hargabka ah waxa jiro kaniiniyaan hargab loogu talagalo oo lagu la tacaalo laakiin waxa aad iyo aad ugu sii wanaagsan waxyaabaha dabiiciga ah aad gacantaada ku samaysato waxa kamid ah waxyaabahaasi sanjabiisha ayaa kamid ah waxa kaloo kamid ah liima dhanaanta sidoo kale waxa kamid ah malab maasha Allah intaas waa daawo la hubo waxaa soo qaadanaysaa sanjabiisha qoyan ama midka budada ah inkastoo midka qoyan uu aad u wanaagsan yahay waa soo hooleysaa waxaad ku hooleysaa qalabka yar ee loogu talagalay kaaroodka markaa ku soo hoosho waxaad ku darsanaysaa asiga iyo dhiicaankiisii jaxli madhanaan ayaad ku miiranaysaa sidoo kale waxaa ku darsanaysaa 2 qaado oo malab ah intaas ayaa si wacan isku dhex gelinaysaa kadibna waad cabaysaa ما شاء الله aad ay u wanaagsan tahay wax walba oo maxay ahayd dabiici ah sib ما شاء الله fududna waad uga bagsan doontaa hargabkaasi ku hayo malabku waa ما شاء الله daawo la iskuma gaaro inta badan aad baan u aaminsanahay sidoo kale sanjabiishana wuxuu furfuraa dhiigga marka waxa jiro sanjabiishaasi qoyan ama midka qalalanba ka taysata ayaad isticmaali kartaa dhiigga ayuu furfuraa oo dhiigga ayuu kala kiciyaa ma sha Allah aad ayuu u wanaagsan yahay sidoo kale liima dhanaantana waa antivirus aad ayay ugu wanaagsan tahay dadka qaba hargabka saddexda shay hadaad maxay ahayd isku darsato oo cabto ma sha Allah waxaad ku darsanaysaa biyo yar oo qandac ah kadib waad cabaysaa aad iyo aad ayay ku anfacaysaa insha Allah ta'ala yaan la moogaanin ma sha Allah wax walba oo dabiici ah kaniiniyaasha aad ay ugu wanaagsan yihiin marka waxaaba jira dad inta badan aan kaniin isticmaalin oo mar walba xabasooda iyo malabka iyo aad isugu daaweeyo waana daawo xilliga nabiga sallallahu alayhi wasallam la isku daaweyn jiray ana la dhayalsan karin ma sha Allah faa'iidadeeda malabkana aad ay ugu wanaagsan yahay hargabka inta badan waa aragnaa caruurta iyo dadka waaweyn iyo markuu hargab ku dhaco malabkaas ay isticmaalaan marka waxa ku darsataa malabka sanjabiishaasi qoyan iyo liima dhanaanta iyo biyo yar oo qandac 3 maalin insha Allah gudahooda aad uga boodaysaa ma sha Allah waa daawo aad iyo aad loo hubo mar walba oo maxay ahayd isku daweysidna waxyaabaha dabiiciga oo gacantaada aad ku samaysatana aad ay uga kalsooni badan yihiin waxyaabaha kaleeto saddexdan shayna waa daawo aad iyo aad muhiim ugu ah jirkeena waayo malabkana wuxuu dhaqaa beerka iyo meel walba ayuu dhaqaa sunta jirka ayuu ka dhaqaa viruskana waa sun liima dhanaanta ma sha Allah sidoo kale sanjabiisha qoyan ma sha Allah dhiigga ayuu ku furfurayaa inta sadaa isku hesho maxaa ka wanaagsan ba biyo yar oo qandac ayaa ku qasanaysaa dhag ayaa isku siinaysaa dadka gaaska qabo ayagoo gaajoon alaabtan isticmaali karaan waayo sanjabiishu ku leeyahay xogaa wax yar markay cunaan oo kaleeto ay isticmaalayaan laakiin dadka caadiga ah waxa u wanaagsan subax markay ka soo kacaan inay isticmaalaan soo dhawaada ayaa idin leeyahay asxaabteen cusubne gacmo furan ku soo dhawaada ayaa idin leeyahay asxaabteen hore noola joogtana ma sha Allah aad ay ugu wanaagsan tihiin nala sii jooga oo noo sii share gareeya si uu gaaro dad fara badan oo u baahan afaarahani ama waxyaabahani aad baa u mahadsantihiin